saddexdii bishii saddexaad ee sanadkani waxaa ku baxay gacanta eedaysane Dable Bool Cabdi Xuseen Maxamuud oo loo garan og yahay Cabdi Dhafoor. Allah u naxariistay marxuum Sugu Gaaranaciyow. eedaysane Cabdi Xuseen Maxamuud maalintaasi waxa uu qorshaystay sidii uu dunida u dhaafin lahaa. Allah u naxariistay marxuum Sugu Gaarane. mid ka mid ah marqaatiyaasha xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda hor keenay ayaa sheegay in inta uusan dhicin dilka ka hor uu eedaysanaha ka soo kaxeeyay marxuumka gudaha magaalada Luuq waxa uuna dilka ugu geystay gudaha saldhigga taasi oo ah maqalkeeda dhif inaadir kadib cadeymo ku filan oo xafiiska xeer ilaalinta uu hor keenay maxkamadda. go'aanka maxkamadda waxa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27 gaashaanle Maxamed Amiin Cabdulle Aadan. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeeraalyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneed aayadda 178 suuratu al-Baqara qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qiraalkii eedaysanaha uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markay dhageysatay dambi baarihii dacwadda iyo marqaatiyaashii xafiiska xeer ilaalinta hor keenay maxkamadda horteeda midna u dhuuxday marag furkooda markay aragtay sawirka marxuumka iyo xaashida dhakhtarka ee cadeynta dhimashada marxuumka markay aragtay dambi muujintii falka lagu geysto oo ah qori AK47 ah markay dhageysatay doodii u dhaxaysay xeeraalyaha iyo qareenkii difaacay eedaysanaha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu cadaatay in eedaysane Dable Booliis 26407 Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan Cabdi Dhafoor uu yahay dambiile galay dambi lagu soo eedeeyay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii Sugu Gaaranaciyow cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxa u furan raafaan wabillahi tawfiiq. Nuur Maxamed Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed degmada Doolow ee gobolka Gado.